دنبي هدي سمايان أي قفان أصحاب رسولك رضوان الله عليهم أجمعين ما يفري سكرين صحابة رسولك نبيكم مالين كلا الشوريي مالنتي ونبيكم كصون نقد غزوة الأورنجر غزوة الأحزاب مركب نبيكم صحابة كتلقليي يهود مقالة مدينة دقن markii nimanka quraysheed halka ay soo joogsadeen intay quraysh hoosta kala heshiiyeen nabiga iyo saxaabadiisa makriyay ee quraysh kula heshiiyay in iyakuna dagaalka markay ku soo dhiftaan anaguna ubadkoogii iyo dumarkoogii baan haynaayo waan ku bilaabaynaa inaguna xaqiina ka soo bilaaba nimankii yahuudeed ee quraysh xilfiga la galay markii nabiga ilaahay guushi uu siiyay ayuu nabigu soo noqdo saxaabadii buu ka tala galiyay yiri nimanka inala degan ee sharka badan leh waad ogeedeen dhibtay noo geysteene wixii laga yeeli lahaa ka tala bixiya buu rasuulku yiri suuradii habeenkii way dheeraatay qaar waxay saxaabada rag soo jeediyeen raggoogana halalaayo ubadkoogii iyo dumarkoodana balilaqa loo qaatay waxooga qaarna waxay yiraahdeen maya nabi allow ayagiyo ubadkoogii iyo caruurtoodaba hanidhaano adeerayaal dalkan wada degi mayno wada joogi mayne noo dhaafo naga taga hanidhaano suuradii way dheeraatay markaa suuradii oo socota buu nabigu iska seexda baritoole suurada waa ku celin doonaa mar kale abu lubaaba ibn abd al-mundhir saxaabiga la oran jiray oo markaa yahuud jaar ay ahaayeen waliba ma aragtaan daris wanaagsan iyo xiriir fiican uu ka dhaxeeyay iyo heshiis taariikh soo jireen uu ka dhaxeeyay ay habeenkii aqalkiisa ugu yimaadeen dadeen xalan ugu taliyay annaka markaa buu sidaa buu ku yiri maxay ka dhiganta yaa qoorta leeyni dheereynaya hadda ma oran hadal ishaaradaas uu bixiyay arintu way adag tahay oo sidaas habeenkii markii aqalkiisa uu galay markiiba dareenkiiba u soo noqday uu yiri dambi weyn baad gashay khalaas way ku dhamaatay sirtii nabi maxamed baad u sheegtay yahuud habeenkii ma seexan islaantiisii baa tiri war wadiga seexan la maxaa la seexan laadahay markaas uu dambi weyn baan galay waa maxay dambigu sirtii nabiga yahuud u sheegay dhulka iqaadi samada qarin ma meelan ku dhuntaa jirta hadee toole waxiga soo dagid oo nabi maxamed baa looga warameynanahay anigu khaa'in ummadii baan khaa'imay taladii ummadan khaa'imo khaa'in baan noqday islaantii buu soo raacina mari saqdhaxa weeyaan soo raac xarigana ay soo qaad tiirashi masjidku lahaa waliba iridda nabigu uu ka gala guriga Aisha tiir u dhawaa ayuu yiri halka igu xidhxidhi buu halka igu xidhxidh ilaahay oo ay furta mooyaan anigu halka iska furi maaye way soo raacday waa saqdhaxe masjidka nabigu nal male inaga masaajidka imsa nal noo shadmaysa inaga masaajidda waan qurxinay zamankeenan laakiin acmaashi hidaayadu ay ku soo dagaysay masaajidana kama socoto amal al-hidaaya walla qurxiya dhiski waan qurxinay waan dhalaalinoo nal baa ku dhalaalinay laakiin amal al-hidaaya masaajidana ma taalo masaajidii markii acmaashi hidaayada la soo gali waayayna dhalinyaradeenna waxay la soo gashay moobeeladii Facebook bay ku jiraan masjidka dhexdiisii masjidka nabigu 9 sanadood oo isku xigta nal ma lahayn baa la yiri saxaabadana quraanka ahdigooga ma boqornayna laabtooday ku hayeen oo nin walba quraanka dushu ku akhrisanayay masaajidka saqdhaxa intay soo galeen isagii xaaskiisii ay halkii ku xidhay tiirkii halkii iridda nabigu ka soo galayay salaadii subax markuu nabigu soo kacay salaata leylkii ayuu arkay nin ku xidhan tiirka markaa buu nabigu waa kuma waa abu lubaaba markaa buu nabigu iska tukaday salaadii markay gaadheen waa laga furay uu la tukaday haddana waa lagu xidhay islaantiiba xagga dambe ku tukanaysa way timaadaa way ku xidhay maalintii oo dhan nabigu lama hadal waxa uu ninkani uu sameeyay cid og ma jirto markaa buu nabigu soo baxay wuxuu ku yidhi abu lubaabow ilaahay xadhiga ka furmayo anu ku furmayo ugu buu ku yidhi markiiba waa loo sheegay ninkani dambiga uu galay inay tahay suuradii ummaddu ay ku shuuraysanaysay sirtii nabi maxamed buu banaanka u saaray 6 maalmood iyo 6 habeen buu halka ku xidhnaa marka salaada uu tukanayna islaanta ka furaysay marka salaada laga baxana iyada ku xidhaysay markaas soo degtay aayadihii quraanka ee nabigu kaleey salaat oo ilaahay jalla wa ala uu toobadiisa kaga aqbalay ee loo cudur daaray looga digay ee la yiri ya ayyuhalladhina aamanu la takhunu allaha war rasuula wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun ilaahay rasuulka hadaad khaa'intaan amaanadii ninka leeyni dhibtay ummadda leeynigu dhibtay baad khiyaanteen waayo ninka nabi maxamed sirtiisa gaalada u sheega isaga wax isyeelay ilaahay nabiga wax ma yeelayo
markii aayaddaas soo degtay aayado lamida ayaa markiiba waxaa soo baxay haweenaydii nebiga sala allahu calayh wasallam mid ka mid ah ayaa tidhi ummu salama inay ahayd baan jecelahay nebi allow ma u bishaareeyaa markaa buu yidhi haa u bishaaree markaasay soo baxday tidhi abulubaaba bishaarayso toobaddaadii way soo degto toobaddii waa laga aqbale markaasuu yidhi yaa rasuul allah adoo iga fura maahine anuu iska furi maayo buu yidhi islaantiina wuxuu yidhi ay soo dhowaan adigu nebigu iga furi maayna cid iga furaysa ma jirte dembi way gelayeen laakiin dembigooga markaaba way ka toobad keenayeen qofka muuminka iimaanka leh calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah khayr markaad samaysa hadduu ku farax geliyo dembi haddii uu kaa dhacana uu ku cabsi geliyo innagu maanta dadkeennu zamankeennan maanta muslimiintu waxaa laga yaabaa dunuubta kabaa'irka lagu halaagsamo innagoo ku dhex sugan ayaan iska faraxsannahay haddana kabaa'ir baan ku dhex jirnaa dunuubta lagu halaagsamo dunuubtii ummadihii inaga horreeye lagu halaagi jiray ayaa dadka qaar ku dhex jiraan maca daalika dembi inay sameeyeen ba iskuma arkaan waxaan leenahay ilaahay caza wajalla naxariistiisa ka quusan mayno waa waasic laakiin ilaahay uu ina jecel yahe inakuna ilaahay hanu soo noqono hanu toobadkeena ilaahay oo nabigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam hadigiisa ha raacno suuraddiisii waa maxay suuraddiisii waa u ekow nebigaaga calayhi salaatu wasalaam siiradiisii waa maxay qaarkee nebigeennu u dhaqmaayey nebigu siduu ummadda ula dhaqmaayey waayo nebigu malag maahayna bashar buu ahaa basharkana uu dhex socday nebigu calayhi salaatu wasalaam tujaarta qaab buu ula dhaqmaayey fuqarada qaab buu ula dhaqmaayey madaxda qaab buu ula dhaqmaayey culummada qaab buu ula dhaqmaayey dhallinyarada qaab buu ula dhaqmaayey addoommaha qaab buu ula dhaqmaayey saxaabada qaab buu ula dhaqmaayey reemiga qaab buu ula dhaqmaayey reemagaalka qaab buu ula dhaqmaayey nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga akhlaaqda iyo qiyamka wanaagsan waxa uu nebigu ahaa mathalulaclaa buu ahaa basharka dadka adduunyada ku nool oo dhan baa la leeyahay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kasiira rasuulka ilaahay waxay niigu sugnaatay ku dayasho wanaagsan cid allii ciddii rabta inay cid ku dayato waa inay nebi maxamed ku dayataa calayhi salaatu wasalaam xagga geesinimada nebi maxamed mathal buu ku yahay ku dayo habeennada ka mida ayaa magaalada madiina sawd baa ka soo yeedhay shanqadh markaabay saxaabadu hubkay qaateen meeshii qaylada laga maqla bay ku dhaqaaqeen markaasuu nebi maxamed baa ka hor yimiday waa meel mugdiyo madow markaabuu nebigu yidhi meeshii qaylada ay ka soo yeedhay anigaa ka yimid oo gaadhay oo ka soo noqdee wax dhibaataha kama jiraan iska seexda buu rasuulku yidhi dagaal haddii uu dhaca bay yidhahdeen asxaabtu oo dagaalku kululaado oo dhiigku daato oo dhaawacuna uu bato ciddaan daba joogsanaynan dhufayska ka dhiganaynay nebi maxamed bay ahayd calayhi salaatu wasalaam ghaswatu xunayn markii ay ka jabeen asxaabta inta u badan mu'allafata alquluub dad muslimiin oo jududa oo diinta ku cusba ayaa maalintaa tirada muslimiinta badinayay markaabay yidhaahdeen annagaa ka tiro badan gaalada cadadkay eegeena may eegin maaragtaanay asbaabulhaziima asbaabulghalaba waxa gaalada lagaga guulaystaa daahirka maaha cadadka iyo maaragtaane cudadka maaha waxay ciidamada muslimiintu guusha ay ku helaan waa maciyada ilaahay la socota weeyaan waxay yidhahdeen annaka ayaa gaalada ka tiro badan maanta waayo maalintaa tirada muslimiintu 12,000 baa lagu qiyaasaa halka gaaladoona mushrikiintuna 4,000 oo keliya ay ahaayeen wa yawma xunaynin id acjabatkum kasratukum falam tugni cankum shay'a wadaaqat calaykum alardu bima raxubat uma wallaytum mudbiriin ilaahay baa inoogu sheegay fii suurati tawba wa fii suurati alanfaalna waa lagaga warramay qisaskaas ilaahay baa ka warramay oo yidhi maalinkaa xunayna ilaahay baa inii gargaaray waa maalintee waa maalinta tirabadnadiinnu ayni farax gelisay ee tirada badan ayni cajab gelisay ee nebi maxamed agtiisa aad ku jabteen eed gaalada dhabarka u jeediseen maalintaana ilaahay baa inii soo gurmaday oo ilaahay baa inii gargaaray baa lagu yidhi dad yar oo islaamnimada ku cusub oo marka horeba niyadday u soo baxeen ay tahay inay xoolo iyo khaniimo iyo dahab iyo lacag iyo dhaqaale ay soo helaan doonayay ayaa ciidankii muslimiinta niyad jabiyey markaasay jabeen markaa buu nebigu arkay muslimiintii oo jabtay markaa buu nebigu yidhi cabbaas oo adeerkii ahaa ayuu nebigu arkay cabbaas bin cabdilmutalib wuxuu ahaa
cajiib 8 kilomitir 8 mayl ayaa qayladiisa laga maqli jiray baa la yidhi markaa buu nebigu yidhi yaa cabbaas iigu yeedh buu nebigu yidhi raggii geedka hoosteeda igula ballamay arrintu markay kululaatay qaraaraato waxaa loo yeedhanayaa raggii badriyiintuu nebigu u yeedhanayey raggii baycadda nebiga la galay cinda shajarati samura id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fii quluubihim faanzala asakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba maalintii nebigu maka u yimiday ee maka nebigu inuu gala qurayshi ay u diiday raggii nebiga baycada la galay ee 1400 ahaa ayuu nebigu yidhi raggaa iigu yeedh buuhi cabbaas oo raggaa iigu yeedh aasaarna iigu yeedh buu nebigu yidhi war diintu rag bay leedahay adduunyaduna rag bay leedahay siyaasaddu rag bay leedahay qabyaaladdu rag bay leedahay diintuna ilaahay bay leedahay saasaa tidhahdeen baan u malayn waa sida soomaalidu aaminsan tahay baan nii sheegaya anu soomaalidu wax waliba way sheegataa ilaa diinta un bayna sheegan wixii ilaahay lahaa baan sheeganaa dhulka annakaa le waxaan annakaa le meeshan annakaa le reerkayagaa le diintana ilaahay baa leh dhulka ilaahay baa leh badda ilaahay baa leh buuraha ilaahay baa leh adigu muslimow diintaad leedahay diintu rag bay lahayd markaas raggii diinta maanta mee aaway ah taawa raggii diintu nebigu raggii diintu ay lahayd buu yeedhay maalintaas ayna asxaabu samura cabbaas binu cabdilmutalib baa markiiba sii jeestay yaa macshara alansaar yaa macshara almuhaajiriin yaa ahla baycata aridwaan wa yaa ahla badrin aawaya nicaawaya markaasay nebiga u soo wada noqday kulligood 200 oo nin baa yaa soo rogaal celisay dhowrkii 100 markii dagaalku kululaaday bay ka hadlayaan ay leeyihiin dagaalku maalinta waa nagu kululaaday markaan waxba garan weynayna nebi maxamed baan dhufays ka dhiginay yidhaahdeen nebigu uu dagaalamayaa waa geesi haddaad geesinimo doonto isagaa misaal ku ah haddaad deeqsinimo doonto nebiga cid ka deeqsisanayd adduunka ma soo marin calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida buu nebigu nin reer baadiyaa ayaa u yimid oo yidhi nebi allo wax isii markaa buu nebigu wax badan buu siiyey xoolo badan buu siiyey markaa buu yidhi haye si fiican wax ma kuu siiyey markaasuu yidhi si fiican waxba iimaad siinin buu ku yidhi iska daa inaad si fiican wax ii siisee buu yidhi xataa imaad wanaajin buu ka yidhi markaa bay saxaabadu xanaaqeen waa nin reer baadiye ah oo nebi maxamed wax weydiistay ayuu nebigu intuu soo qaaday buu weliba wax siiyey markaa buu yidhi hoo lacagta intaa le qaado xoolaha qaado 100 neef oo geela laga yaaba inuu nebigu siiyo markaa buu nebigu yidhi ma ku wanaajiyey markaa buu yidhi inaad waxay siisay iska daaye hee saad ila dhaqatay si qurux badan maaha buu ka yidhi markaa buu nebigu isku aamusay shib uu aamusay saxaabadii way xanaaqeen way cadhoodeen xataa rag baa yidhi nebi allow nagu sii daa markaa buu nebigu wardaaya iska daaya aqalkiisii buu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam markaa buu yidhi war ninkii reer baadiye iigu yeedha markaasaa war nebigaa kuu yeedhaya kaalay markaa buu u yimiday markaa buu yidhi intii horeen ku siiyeyna adigaa iska leh intana ku darsa buu yidhi kiish dhan oo dahab buu nebigu siiyey qaado markaa buu nebigu yidhi haye si fiican ma wax ma kuu siiyey markaasuu yidhi haa wallaahi nin waxaa tahay tolkaya oo ehelkaygiiya oo qaraabadaydiiya oo si fiican baad waxay siisay markaa buu nebigu yidhi intaa hadda aad igu tidhi aan israacne asxaabta hortooda ma ku odhan markaa buu yidhi haa waan ku odhan markaa buu soo baxay rasuulku kaalaya buu yidhi u yeedha asxaabtiisa maad arkaysaa ninkan walaalkaya reer baadiyaha ahaa waan arkaynaa haddeertoola waa ninkii wax siiyey wuxuu iigu jawaabay waxay ahayd imaad wanaajin buu igu yidhi hadda aqalka markaan galay waa nigii u yeedhay waxbaan soo siiyo waxbaan ugu soo biiriye bal dhegaysta wuxuu yidhaahdo ma ku wanaajiyey markaa buu yidhi haa si fiican baad waxay siisay khayr allaha ku siiyo nin ehel aan nahay oo tol aan nahay baa tahay khayr allaha ku siiyo markaa buu nebigu yidhi haddeertoole hadalkii horeed igu tidhi markaad asxaabta hortooda aad ku tidhi ayaa quluubtooda waxbaa kuu galay tii baan doonayay buu nebigu yidhi markaa inan qalbigooga ay ka saaraan inay cuqdadii haddeer ay kuu qaadeen cadaawaddii inay qalbigooga ka saaraan baan doonayay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalayaal waxaan u baahannahay maanta dad sidaa nebigu ummadda iskugu waday wax iskugu wadaan u baahannahay innagu maanta oo deeqsinimo wax ku wada 100 halaad oo geeluu nebigu siiyey aqrac binu xaabis safwaan binu umaya oo weli aanan islaaminna 2 buuroo dhexdooda xoolo daaqaya buu nebigu eegay safwaan binu umaya ku maqan buu arkay markaa buu nebigu yidhi yaa abaa wahab waxaa xoola halkaa maray oo dhan adiga iskala qaada buu ka yidhi
وإسقوا آنان إسلامين لما بورو دحدودا حول السعودي أيو نبي يقول جيلا يا لوضا يا أريقا يا فردها يا بقشا يا وحا صودن أنا إسكالي لك عقادو عندك كما حيثتو مرقاسو يري ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي نفس دا وحب حكرتا مجرتو إلا نفتاس النبي بيكون جرتا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داخس النمو هدين نقطنا نبي مثال كوحوها أسر رأيا قيس النمو دلقاد صبر احترام حدي سوا أقل كيس لغا سو صار حدي الغراء أفر نبا صدا وقادي جرتي مرقاس الله صوري حديق مسجد كي نبينا عليه الصلاة والسلام مرقاسو نبي قدد في مسجد كجوغو دنبو وياري مرقاسو ميلو كفرستو وايي مرقاسو نبي قو كودت صدي نين أعرابي النبي كويري وصدا الضومها دو فريسته مرقابو نبي كويري واي عبد نعبد مني إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا بنبي كويري إلهي وحو أنيق إيجي لأضون ديقس بدن إلهي إيجي ميل جبار من ظلم بدن ومجرمة وكبر بدن وعنيد وأخلاق حن إلهي أنيق إيجي مدقين بنبي عليه الصلاة والسلام ولا ليا الأخلاق دي رسول كينا عليه الصلاة والسلام أيا نوبا هنهي ولبا مالمهن ما دام إلهي جل وعلا إنك كلك دعوة يكولك الدين دو إنك سوقيب كليي وحنوبا هنهي أخلاق دي نبينا سيدان مرضى أحيرنا إنه إن أخلاق دي نبينا أحيرنا دانا أمد الرسالة أخلاقا كوغارسينو واي النبي الرسالة إنت أبدا وحاو النبي كف دنجري وأخلاق دو ونكسن مقالة مكو صوغلي مكا عيدا بنبي كو قبتي لكن قريش داتي مقالة مكا دقنا قلوب تودي نبي وحو كفرتي أخلاق ونكسن مقالة محوكو قبصدي عيدا حقا عيدا بو كسوق الشيء 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 لكن داتي مقالة مكا كنو لا مر علي مركيس ديبين ومالنتي أنصاري أي رادين ما أنتو مالنتي داتك يلبوه قال لكو قوينيي ويا قريش عداوة حوق ليوها يرين مدينة وحي كل عداوة تمين وحكا لماها ودينك درتيد بكل عولي تمين ما دام مقالة مكة نبي أي كل بيين وصحابة أي كل بيين وعير هذا ما دام ما أنت قريش أنقب صني وحي مقالة جوغر هل قويو عباس بن عبد المطلب والنبي قادر كيها أي نبي أسود سويري يا رسول الله ما أنت دتكني أهل كني وأود ما تبودي ما أنت والله دمينا يا مركب نبي محمد مغش يعني ما كي أسارة وحيليهن ما أنت ومالك دتك يلبوه قال لقوقوني اللي قورعي مركب نبي قيلي أرضه وحد كتر هذا نبي محمد وحيري ما أنت ومالك إن حارس دتك الله نحارسني ما أنت مالك دتك اللي بكوجا لقوقوني اللي قورعي ما هكذا ومالنتي وارشاقة ومالنتي دتك الله نحارسني بنبي يقول مركبوا عباس كعلي إعلانك وعاتر هذا نيك أقل جيسين توقلو هوستك حدوا آمن نيك بيتك إلهي صوقلا كعبة مجنجل يوي دي سنة وآمن أبا سفيان ودقي مقالة قريش مقالة مكة ودقي قريش هذانا إسقنا قري جيسين نيك مجنجل يوقلا وآمن قريش ونبان وحي هاي الوقت ماذا حي الله صلاح يجعل يعني تبضن وهي النبي محمد باكدش عليه الصلاة والسلام برجع عباس بعد النبي الله وأبا سفيان وهنن أمانته جعله سجنا وحده مرجع أبو النبي قيري وحد سجنا وتر هذا أبا سفيان أدق أبا سفيان أقل كيسة نيجا مجنجليه وقرنا ولا مجنجليه كده أبو رسول قيري مرجع أبا سفيان مدح تاجو قصلي مرجع قريش أقل ذي كل كي نبدي أي سكناتي عيدا كي النبي كحكمي عيدا كنبي محمد وطو حديث بحكمين آية كلمة والنبي يقول عدنا في سمجرته لأنا أمة تربية ديسان ولا ديسيها ين أمة كلا سعوطة معها أمة ولا سعوطيها ين أمة ميلو جهاي سنبيها ين أمة لا تربية دي إن دتك هداية دو دايك فكران بها ين مركب النبي صلى الله عليه وسلم قريش ودم بالله صو صاري مركز النبي يقول ما دين يكون دول كساو يا جاي حشود سيد يكون ولا دغمين سكت ومنبي يكون ولا دغمي يكون مقالة مكة
dhuumashay kaga saareen nebiga laakiin isagu wuxuu ula dhaqmay sidee aqalkiisa ninka gala waa aamina ha taabanina ninka beydka ilaahay soo gala waa aamina ha taabanina ninka Abu Sufyaan gurigiisa gala waa aamina ha taabanina maalintii dadka la gowracayo la leynaya maahe waa maalintii dadka loo naxariisanayay buu rasuulku yidhi sidee ula dhaqmeenna waa sidee waa kuwii magaalada Makka markuu nebigu aqalka uu dhex urday 40 nin oo dhalinyaro ah oo Quraysh jilib walba waliba nin laga soo qaaday ayay yidhaahdeen seefta u kulmiye Muhammad magtiisana neef aan u bixinaynaaye tiibi xasuusteen markaa xataa wajigiisiiba eegi kari waayeen dhulka eega markaa buu nebigu yidhi maxaad iga filanaysaan maanta bal sheega Qurayshay ma dheerayn maalintii dhibayeen waa 6 sano ka hor bay ahayd maxaad iga malaynaysaan bal sheega maxaad iga filanaysaan markaasay yidhaahdeen waxaan kaa filanaynaa waxaa tahay wiilkaygii wanaagsanaa oo walaalkaygii wanaagsanaa uu noo dhalay baa tahay waxaan xasuustay dadkii inoo fikirayeyna way naga dhammaadeen dadkii inoo murugoonayeyna way naga socdeen markaskan hidaaya ninba ninkuu ka murug badnaa buu ayuu ilaahay qaatay ilaahay naga dhex qaatay sanadba sanadka ka dambeeyana dacwadda dadkaygu way badanayaan laakiin tayadeedu hoos ba u socotaa marmar waxaan is idhahdaa maalmahan axbaabta dhexdooda markaan arko maxaa u soo gaadhays maxaa raggii hore ilaahay hanoo dambi dhaaf aamiin dhahda walaalayaal nicmad baa ilaahayna siiya nicmadaan ilaalino camalkan raggii u soo tadxiyooday albaabka aad ka soo galaysaan buu dhiigooga ku daatay albaabkaas hambaxno reer muqdisho khaasatan waxaan ilaahay fadhiga ka kacaa in yar baad nabad yar baad hesheen adduunyaha u noqonina ninka maanta adduunyo u noqda uu khasaaray ummaddana uu khasaarina ogaada camalka maxabahan ku wadno ummaddahan u naxariisano dadkii noo naxariisanayay noo murugoonayay ilaahay baa inaga jeclaado inaga dhex qaatay insha allah dhahada yaa u diyaar insha allah inuu dadaalka xoojiyo allah inagu